waad ogtihiin oo magaaladeennii qoryaal wada sitaa oo dadka walaalaha ee dhibta uu kala gaaray inagu aynu u noqono horseed inaynu dadka aynu ku hogaamino khayrka iyo wanaag walaalayaal haddaynu maanta rabromeedo kii qof dilaba haddii la dilo nolol banu helaynaa oo kii dulmi ama kii dhib geystay haddii la soo qabto odaba soo istaagay waxa uu leeyahay wayna hebel soo daa haddaan maanta loo midoobin arrinka magaaladeena ka jirta walaa loo shaqo tegayn masaajidda inaan la imaan doonin wixii ka dhacay in loo yimi hooyo iyo labadeedii gabdhood mindi lana galay oo la gooracay hadda waa dadkii haddii ay colaad soo baxdo waa dadkii aan faraha la geli jirin wey dilalkan waxa ay keenaysaa walaalayaal waa amni darro maanta waynu dareemaynaa walaalayaal magaaladeena waxa la isku sitaa waa hub weeye haddaynaan inteenan masaajidka ku jirta iyo inta magaalada kale joogta haddaynaan saf aynaan ka noqon walaalayaal waxa soo socda waa wax khatara weeye haddaan maanta loo midoobin arrinka magaaladeena ka jirta walaa loo shaqo tegayn masaajidda inaan la imaan doonin waxa weeyaan xaaladaasna waxay keentaa waa amni darro weeye walaalayaal markuu hub la isku sito oo cidda ishaysataa ay iska hor imaataaniin dad baa ku dhex baaba'aya oo waayeel baa dhex maraya oo caruur waxbarasho loo soo diray baa dhex maraya oo hooyooyin waxa weeyaan adeeg soo doontay baa waxa ku dhimanaya arka xaaladda noocaas walaalayaal xaaladda maanta magaalada ka taagan haddii loo aamuso waxay keenaysaa inaynan magaalada aynan joogeen xaaladdan maanta waxay leedahay dabaqabashay leedahay maanta waa la qaban karaa laakiin beri lama qaban doono walaalayaal waxaynu dareemaynaa aanada qabiil waxa la yidhaahdo inay dhibaato fara badan ee waayaha dambe ummadda Soomaaliyeed ku keentay waxaynu wada ognahay oo aynu ka wada daragsanahay mudug ama mudug wixii ka dhacay in loo yimi hooyo iyo labadeedii gabdhood mindi lana galay oo la gooracay hadda waa dadkii haddii ay colaad soo baxdo waa dadkii aan faraha la geli jirin wey walaalayaal qofka madluumka haddaan la qaban haddaadan ka dhiidhin oo aadan dhibsan gurigaan kugu imaan doonaa berri dadkan waa dad xidid iyo xigaal ah mandaqadan inta ku nool waa wiil iyo abtigii waa wiil iyo sodogii waa wiil iyo seedigii xagee la kala aadin meelna la kala aadi maayo wey inagu waynu ka roonayn oo ummadaha kale ama dadyoada gobollada kale dhibaatada koonfur iyo meelaha la midka waxyaalaha ka dhaca waynu ka roonayn laakiin walaalayaal haddaynu la mid noqonno dee nolosha aynu maanta ku jirno meeradahan aynu fadhiisanayno masaajidda aynu ku cibaadaysanayno goobahan waxbarashada ay ubadkeennu ay dhiganayaan intaa lama heli doono walaalayaal xaaladdan noocan ah qofkii qof dila horta in badan baa waxa diinteennu sheegtay qofkii qof dila ilaahay wuxuu u ballan qaaday jahannamo jahannamo wax sahlan maaha walaalayaal bal ilaahay wuxuu yidhi waa uu ku waaraya oo jahannamo ku waaraya oo laga saari way macnaheedu وغضب الله إلهي بأو عروني سبحانه وتعالى وحلو دياري عذاب كل بلو دياري قفكاس والله لي الأدونك وحن الشغل ومع الموكوبا وي حدينا والله لي الوناك أينان اسكو قرب سين وعدة أمانك الله حصاري أينان قرب أينان كسين
oo kii waxa weeyaan khalad wada farta aan lagu fiiqin oo aan la oran kaasuu dhulku fasahaadinaya dhibaato wada aynu iska qaban culimada waxa la rabaa doorka ay ku leeyihiin inay ka qaataan odayaasha waxa la rabaa doorka ay ku leeyihiin inay ka qaataan dhalinyarada sidoo kale doorka ay ku leeyihiin inay ka qaataan haweenku inay ka qaataan inaan walaalayaal fidmo aan raaliga noqon waad ogtihiin oo magaaladeennii qoryaha la wada sitaa oo dadka walaalaha ee dhibta uu kala gaaray inagu aynu u noqono horseed inaynu dadka aynu ku hogaamino khayrka iyo wanaag maantay waxay leedahay tabaqabashi leedahay haddii aad istiri adiga kuwa meeka ee reer hebel iyo reer hebel buu arkaa ku egyahay walaalayaal khalad baad aaminti xaaladan colaadeed ee magaalada ka soo baxday walaalayaal inaynu saqiir wa kabiir inaynu ka kacno la iskugu yimaado sidii arrinka lagu arrinsan lahaa looga dhiidhin lahaa sidii waxa weeye loo qaboojin lahaa dadka walaalaha ee dhibta uu kala gaaray walaalayaal qofkii rasuulku sallallahu alayhi wasallam iyo diinteenuba waxa weeyaan waxay ilaalisay waxa weeyaan qofka cirdigiisa weeye qof bini aadana la iskama dili karo maanta waxaynu ognahay walaalayaal nin baa dhib geysanaya dhibtii uu geystay isagii laga jari maayo mid miskiina oo aan waxba kala ogeyn oo waxa weeyaan u xamaalanaya caruurtiisii baa qorta laga jaraya walaalayaal diintu waxay jidaysay qofkii qof dila in la dilo qisaaska waxa la yiraahdo walaalayaal hadaynu maanta rabrameedo kii qof dilaba hadii la dilo nolol banu helayna hadii laakiin la dili waayo nolol ma helayno oo shaqadaadu soo aadmaysid oo waxa weeyaan magaalada ku dhex mari maysid waxa weeyaan yaani waxa la yiraahdo kalsooni ku dhex mari maysid haddii in adeerka ama walaalka dib uu geystay adigoo meel fadhiya haday shimbiru duusho waxa moodaysaa in cid kale ay ku soo weerartay waa boodaysaa waayo waa xaaladan aad ku dhex jirtid ee amni darrada ee nolol la'aanta maanta waxaan rabnaa walaalayaal inaynu safka noqono inaynu walaalaheen aynu goobaha ay kala joogaan aynu ku booqono aynu u sheegno war adiga iyo ka adilaysid bannar bad gelaysaani war naar baanu ka badbaadinaynaa war naar baanu ka qabanaynaa war waxaanu rabnaa adiga iyo walaalaha iyo ilmaadeerada iyo bulshada aad yaan la nooshahayba inaad heshaanin baraare iyo barwaaqo iyo amni iyo nolol walaalayaal naftayda iyo naftiinaba waxaan kula dardaarmayaa inaynu arrinka aynu ka hadalno haddii la dhaho wadaadkii maxaa soo geliyay maanta hawsha wadaadku waa soo gelaya idinkana waxaan rabaa inaad gashaan oo inaad ka hadashaan baan rabaa oo dadka walaalaha inaynu u tagno odayaal iyo culumo iyo dhalinyaro iyo haween inagoo inta ka kooban inaan u tagno oo aan raahno walaalo waxaan ku leenahay arigaas ma wanaagsan ee ka joog dadkii maanta dhibta uu kala gaaray masaajidka waxaan filayaa ma joogaan sababtoo ah ma aamini karaan in masaajidka ay soo aadaan idan walaalayaal maxaan doonaynaa wax si aynu u helno magaaladeena barani waxay ku roonayd oo ay ku fiicneyd waa amni weeye haddii maanta inta maanta lagu ciyaaro tan lama joogayo weeye walaalayaal xaaladan waa xaalado siba diinte yani sinaba diinteena islaamku maba jideen diinteenu cidna ma oran waxa weeyaan yani dulmi geyso ma oran oo ilaahay baa naftiisa ka xarimay xitaa waxa la sheegaa qofkii qof dila baa la yidhi inaanu qof kale aanu dili karayne ciddii dhiiggaa lahayd gacanta loo soo geliyo ciddii qisaaskaad mudnayd in adeerka haddii aad dishay adigu ama in adeerka haddii uu wax dilo
inaadan adigu nacid kale aadan u geysane aad sugto cidii dhibta geysatay walaalayaal maanta waxaan u baahanahay waa amni maanta waxaan u baahanahay waa nolol waxaan u baahanahay inaynu saf ka wada noqono inaan qofna aan cid kale aan ku hadlayn oday kale ku hadlayn culimo kale ku hadlayn dawladana garab lagu siiyo oo dawladda laftigeeda aynu ka shaqaysiino oo dawladda aynu farta aynu ugu fiiqno dawladana waxa laga rabaa iyaga meeshan amaankooda baashka mas'uulka baran dawladeedu waa in ay u leeyihiin awood inay wax qabtaan inkastoo qolada dawladda waxa weeyaan ammaanku ay ka cawdaan odayaasha oo kii dulmi ama kii dhib geystay haddii la soo qabto odayba soo istaagay waxa uu leeyahay wayna hebel soo daa haddii khalad uu sameeyey oday dawladda ku taageer oo hal la xiro oo hal la qabto intii ummadan u fasaahadin lahaa intii ummadan u maxaa lahayay uu yaani u geysan lahaa waxa weeye qax iyo dhibaato iyo gaajo iyo amni darro oday adiguna dawladda garab ku sii oo hal la qabto inaynu dhammaanteen aynu mas'uuliyad aynu wada qaadano aynu ka wada noqono inaynu ka dhiidhino kii khalad wada la qabto garabna sideedaba daalimku garab ma lahaba haddii garab uu leeyahayna يعني حتى waxa la yiri qofka daalimka garab si oo si garab ku si ka qabo waxaan khalad kale wada ka qabo oo qooqan iyo kibirkan iyo xaaladan uu ku dhaqaaqay ka qabo oo waxa weeyaan hadii adigu aad qaba kareyna dawladda garab ku si هذا صلوا وسلموا على إمام المرسلين